ayuu yiri rasuulku wuxuu yiri fatiina fajaahid ayaga ku jihaad hooyada iyo aabaha hooyada iyo aabaha ku jihaad oo ayaga ayaa jihaadka ugu filan ayuu rasuulku dhahay sallallahu alayhi wasallam hooyo iyo aaba wanaaga loo sameeyo waa jihaad kibar ayaa lagu xiray markay yar yihiin iyo markay odaynimo gaaraan labadaba isku si ayaa wanaag loogu sameeyaa laakiin waxay aayadu siqaata axaduhuma aw kilaahuma kibar ahaan iyo odaynimo ugu qayday waxay tahay marka ay sii waaweynaadaan dhibaato fara badan ayaa lagala kulmaa waalidka hadal aadan jecleen ayaa laga yaabaa inay ku dhahaan waxay munaasab u arkaan oo aan munaasab ahayn ayaa jira waxyaabo fara badan ayaa laga yaabaa inay kugu kelliseen intaasoo dhan jihaad ayuu la mid yahay u adkayso oo u sabir oo u dulqaado arrintaa ayaa nala amray rasuulku wuxuu tilmaamay sallallahu alayhi wasallam qof waalidkiisa wax u gudi karaa ma jiro waxaa la dhihi jiray hooyada ama waalidkaa haddii aad dhabarka ku qaado oo 7 mar aad xajka lagu geyso oo aad soo tawaafiso xataa ma gudin waxyaabaha iyo xaqa ay kugu leeyihiin hal maalin ama hal habeen oo hooyada qorax ay kaa qarisay ma u suurageli karto oo ma u dhigmayso hal habeen oo hurdo ay kasoo naxdaysan u dhigmayn war iska ilaaliya qaasatan hooyada hooyo iyo aaba waa kala xaq badan yihiin hooya xaq badan nin ayaa rasuulka u yimid wuxuu dhahay rasuulkii allah man axaqu nnaasa bixusni suxbati qof aan la saaxiibo oo aan wanaag u sameeya oo xaqnimo badan dadka rasuulku wuxuu yidhi ummuka hooyada intaa ka gadaal wuxuu dhahay summa man yaa ku xiga rasuulkii allah nebigu wuxuu yidhi ummuka hooyada mar saddexaad ayuu ku celiyey ninkii rasuulku wuxuu dhahay ummuka hooyada intaa ka gadaal mar afaraadkii ayaa la yidhi abuuka ow ama araaka aabaha ayaa ku xiga hooyo 3 mar ayay ka xaq badan tahay aabaha waayo hooyo dhibaato fara badan ayay soo martay hooyada in aad iyo aad loo ixtiraamo oo loo wanaajiyo ayaa qiimo iyo wanaag badan hooyada rasuulku wuxuu tilmaamay aljannatu taxta aqdaami lummahaat hooyooyinka lugahooda hoosteeda inay